saddexdii bishan aynu ku jirnay juun waxaa dhammaaday howlgalkii xafiiska qaramada midoobay ee umbos ee siyaasadda soomaaliya kaas oo madax ka ahaa dor augustiin mehiga oo u dhashay dalka tanzaniya waxaana la abuuray xafiis cusub oo loo bixiyey ansom madaxna uu ka yahay nicholas key oo ah diblomaasi u dhashay dalka britain qaramada midoobay iyo bulshada caalamku waxay siyaabo kala duwan ugu lug lahaayeen siyaasadda soomaaliya wixii ka dambeeyey burburkii dawladda dhexe ee dalkaasi waxaana mar walba jiray howlgallo ciidan iyo xafiisyo siyaasadeed oo qaramada midoobay raacsan kuwaas oo ka shaqayn jiray arrimaha soomaaliya xafiisyadaas siyaasaddu waxay la tacaali jireen maamullada ka jira soomaaliya iyo weliba somalilan haddaba xafiisyada siyaasadda iyo howlgallada ciidan ee kala dembeeyey ee kaalinta ay ka qaateen siyaasadda soomaaliya iyo weliba waxaa xafiiskan ansom ee dhowaan la magacaabay uu kaga duwanaanayo kuwii hore ayaan barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan ku lafaguri doonaa waxaana igala qayb gelaya cabdicasiis cali ibraahim xildhibaan oo ah qoraa taariikhda dhaqanka iyo suugaanta soomaalida wax ka qora cabdicasiis xildhibaan waxa uu ku sugan yahay magaalada london ee dalka britain waxaa isaguna igala qayb gelaya ismaaciil hurre buuba oo mid ka mid a xukuumadii hore ee soomaaliya ka soo noqday wasiirka arrimaha dibadda muddana degganaa dalka kenya una kuur galay sida xafiisyada siyaasadda ee fadhigoodu ahaa magaalada nairobi ay u shaqaynayeen ismaaciil buuba waxa uu barnaamijka nagala qayb galay isagoo jooga magaalada muqdisho waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah maxamed axmed maxamuud barawani oo xubin ka mid ah bulshada rayidka aqoonna u leh barnaamijyada horumarinta ee somalilan maxamed waxa uu ku sugan yahay magaalada hargeysa ugu horrayntiina cabdicasiis xildhibaan ayaa waxaan weydiiyey taariikhda xafiisyadii siyaasadda ee soomaaliya ka soo jiray wixii ka dambeeyey burburkii dawladdii dhexe bismillaahi raxmaani raxiim waxaan marka hore jecelahay inaan halkan ka salaamo ismaaciil hurre buuba waxaan ku leeyahay marka hore salaan diran iga guddoon iyo maxamed axmed oo aan filayo inuu hargeysa joogo salaan kadib waxaan jecelahay bal intaanan cabdi iyo intaan la saarin jeclaan lahaa bal inaan iyar oo taariikh ah ka bixino haddii ilaahay ilmahayo dadkii madaxda ka noqday xafiiskaas isaga la hadalhaya maanta ee wakiiladii qaramada midoobay ee soomaaliya waxaan rajaynayaa burburkii dawladnimo ee soomaaliya ninkii ugu horreeyey ee qaramada midoobay ee arrimahaas iyadaa u xilsaartay wuxuu ahaa james o c jona ama james jona waxaa ku xigay maxamed saxnuun sidoo kale ninkii saddexaad wuxuu ahaa cismed kitani oo ciraaqi dhalashadiisu ahayd waxaa ku xigay admiral jonathan t how oo u dhashay dalkaas maraykanka waxaa ku xigay lansana kayota oo isaguna ahaa nin guinea ka yimid waxaa ku xigay james victor beho waxaa isna ku xigay oo dhalashadiisu tahay ghana waxaa ku xigay david stephen oo ingiriis ah waxaa ku xigay winston tubman oo liberia kasoo jeeday francois fall oo isna kasoo jeeday guinea waxaa maanta inta aan la magacaabin ama aan ninka cusub loo dhiibin xafiiskaas isaga ah ka horreeyey nin isna la oran jiray oo dadka soomaaliyeed dhagahoodu aada iyo aad ay maqalkiisu ugu badnaa oo ahaa ambassador mahiga tirada guud ee wakiiladii qaramada midoobay ka socday ee dalka soomaaliya tan iyo burburkii dawladnimo ee soomaaliya waxay tiradoodu ahayd 10kaas nin waa gartay axmed weled cabdallana malaha uu ku jiray axmed weled cabdalla raaliga ahow waaye markaa bal mahigu ka horreeyey waa sax markaa bal magacyada xafiisyada siyaasaddu miyay kala duwanaayeen markaad jonathan how sheegaysto kale ma xafiis qaramada midoobay soo magacooday buu madax ka ahaa mise howlgal military oo ka duwanaa howlgalkii unitaf ee soomaaliya ayay hawsha iyada waxaa la magacaabay bishii march 1993 xilligaas oo uu kala wareegay maxay ahayd ninkii bedelay maxamed saxnuuni ee la oran jiray cismed kitani wuxuu ku soo aaday isagu isbedelkii laamihii qaramada midoobay ee unisom 1 iyo unisom 2 oo ay ka horreysay howlgalladii maraykanka ay hogaaminayeen ee gurmadka ballaaran dadka soomaalida gaarsiinayay wuxuu kaloo lug ku lahaa ninkan isaga admiral jonathan t how khilaafkii dhex maray s n a d uu hogaamin jiray generaal maxamed faarax caydiid iyo ninkan isaga ah ee admiral jonathan t how oo markii dambe amray soo qabashada generaal caydiid khilaaf baahay oo ka dhashay gobolada koonfureed ee jamhuuriyadda soomaaliya waan gartay ansiyo ismaaciil hurre buuba hanaankii ay u shaqayn jireen xafiisyadani iyo sidii ay mar walba maamulka soomaaliya ka jiray ay ula dhaqmi jireen xilliyadii kala duwanaa bismillahi raxmaani raxiim aniga waxay ila tahay haddii muxuu ahaa xafiiskan UN-ka ee soomaaliya qaabilsan waxaynu odhan karaa haddii muxuu ahaa
ويران سدح مرحلة وكل دوان أيو صامري مرحلة دي هو الرئيسي كوكي هالدنيا بحاها دبعتلو كان على خاصة قاعدة فرح بدنايد يو دلكي يبوخي دبنا اللي يصير هالدنيا وقرمدا هالدنيا بحاها مرحلة دي يون هالدنيا بحاها يفهم بابدي ويقانا إن مرحلة دا لبعضنا وحي هالدنيا بحاها مرحلة دي هالدنيا دولتها كمال قاكي كوكي بلعبمان هالدنيا عفتا لغا صوت بلعبو إلى هالدنيا بحاها مرحلة إنك جرتا ولكن مرحلة ظهور دولة دي هالدنيا بحاها كمال قاكي هيدا وجوه الرئيسة حتى لو وصل سمية يتي لبعض بعضان كرتو هالدنيا بحاها waxay ahaayeen marxalad labaad oo hadilmay maxaa si gaar ah u shaqeynayay marxalad saddexaad waxa la oran karaa kolkii hadilmay maxaa ciidamada hadilmay maxaa Itoobiyaanku ay soo galeen iyo intii ka dambeysay ilaa hadilmay mahiiga waqtigiisan la dhameeyay marxaladii hadilmay kala hadilmay ku meel gaar ah ahay ana waxay saddexdaas hadilmay maxaa qaybood balbaaran ay hadilmay maxaa xiriiskan uu soo maray مرحلة والبحث المية بحاها waxay ruwanayd laba dhowr arrimood midiheen caalamku sidoo arkay hadii ahaa mushkilada hadii Soomaaliya si wax lagu qaban lahaa kolkii hore marxaladan ugu dambaysa aad moodaynayda iska shaabahaano waagaasna aad iyo aad baa la isugu taxliijiyeen waxa marxaladii ugu horreysay wax laga qabto laakiin se waxba waa suuroon weeda ilaa hadii ma amisanay ay kaba wada baxday wadanka oo dhan muddo la isaga dhacay dabeedna wadanku inuu hadii ma iska meexnaaban ciidamada hadii ma arrimihiisa oo fiirsan marxaladan hadii ma saddexaad hadii ma ilaa hadii ma hiyo waqtigiisa ee u dhamaaday kala guurku ayaa wadda kalabaad inuu ugu soo noqday hadii ma ahamiyad caalamku xoog u siinayo in arrintan inay laga maarmaan tahay kolka hadii ma dhibaatooyinka Soomaaliya ka dhacay ay noqdeen qaar taabta caalamka amba ha noqoto dhinaca hadii ma burcadbadeedka iyo tijaarada caalamiga ee badahan hadii Soomaaliya ku xeeran ka goosha dhibaatooyin badan oo ka soo gaaray iyo hadii dadkii Soomaalida farax badnaa ee dunida hadii kala qabtay oo hadii xaqirnimada Soomaaliya ka abuurantay ay noqoto mid iyagii saameysay qudidooda ay dabeedna hadii ma action ku isbedelay waxaan arkaa hadii ma qaybahaas iyo marxaladaha kala duwan ayuu xariis soo maray waan gartay ansiyo maxamed axmed oo Hargeysa jooga haddaad eegto dhinaca Somaliland wada shaqeynta ay la lahayd xafiisyadan kala duwan ee siyaasadda ee Soomaaliya intii ka dambeysay burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim wallahi waxaan runtii oran karnaa Somaliland marka laga hadlayo xafiisyada faraha badan ilaa laga soo bilaabo dhowr iyo 90kii Somaliland waxa runtii ahmiyado weyn oo ay Somaliland mataqaana siinisay inayna jirin ama xagga xafiisyada ka imaneysay waayo waxayna xafiisaynta badan aad iyo aad u khuseeya arrimaha Soomaaliya iyo arrimaha Muqdisho ka socda Somaliland runtii qaabkay wax ku bilowday waxay qaab iyagu ay runtii dadku ay isku tashadeen iyagu shirarkii qabsadeen iyagu nabadii dhiseen iyagu dawladnimadii dhiseen marka runtii waxa muuqanaysa inaan hawlgallada faraha badan ee kala duwan ee qaramada midoobay inaan meelba uga banaanayn inay runtii Somaliland runtii soo farageliyaan waayo waxaan ognahay ilaa iyo 19 Somaliland shirarkii horeeyay loo qabtay Burco Boorame dhammaan waxaan shirar ay dadku runtii iyagu iskood u Somaliland iskeed bulshada runtii ay u maamulayso iyagu runtii ay abaabuleen iyagu ay fangareeyeen iyagu ay hogaaminayaan marka runtii waxaad moodaysaa inayna dhinaca Somaliland marka laga hadlayo waxa ahmiyada oo weyn oo runtii ay xafiisyadaas ku lahaayeen inayna iyaguna runtii ayna daneyneynin inay runtii arrimaha Somaliland ay runtii soo farageliyaan hadday tahay kii u dambeeyay imaka la xidhay iyo hadday tahay kuwii ka horreeyaba runtii faragelinta ama ahmiyada Somaliland u lahayd waxay wax aad iyo aad runtii u kooban waayo Somaliland runtii waxay u arkisay inay bulshada inay wax qabsadaan oo iyu gudahooda runtii isku tashadaan oo aan dibadda wax looga soo yeedhin oo runtii go'aan dibadda laga keenan la keenin runtii taasay u arkayeen waana runtii mid lagu guuleystay oo ay runtii qaramada midoobay iyo caalamku og yahay qaabka Somaliland u dhistay nabadda iyo dawladnimadu inuu yahay runtii qaab lagu guuleystay halka runtii aynu ognahay 20 sano Soomaaliya
hawlgallada intaa leeg iyo kharash intaa leeg iyo dadaalka intaa leega baxay runtii inuu dhammaan guuldaraystay waayo waxay wax runtii inta badan dibadda ka socda oo dadkii guduhu runtii ayna runtii iyagu abaabulkooda iyo isku xidhnaantooda iyo say dawladnimada u dhisanayaan runtii aad iyo aad u hooseeyo marka runtii waxaan odhan karnaa ilaa xafiiskii u dambeeyey la xidhay ee Mahiga markaynu eegno waxay dhammaantood ku jahaysnaayeen arrimaha Soomaaliya ka socda wax runtii Soomaaliland inta badan ka soo gaadhayay ama runtii hawlgallay kusoo sameynayeen runtii muu jirin. waan gartay aan ku weydiiyo waa runtaayo heerka ay ula shaqaynayeen Soomaaliya inteeda kale iyo Somaliland farqi baa u dhaxeeya laakiin waxaa jiray Somaliland inay qabsan jirtay doorashooyin waxaa jiray barnaamijyo horumarin oo ka socda kaalin intee leeg bay ku lahaayeen xafiisyadaasi waxaan odhan karnaa runtii horta barnaamijka doorashooyinka qaramada midoobay wax kaalin oo muuqda kumay lahayn wax caawimo muuqdana kamay geysan wax facilitation ama technical ama wax runtii farsamada kamay geysan inta badan doorashooyinka Soomaaliland waxa aad u caawiyay wadamada Mareykanka iyo Yurub ayaa runtii aad iyo aad u caawiyay laakiin qaramada midoobay inay runtii joogitaankooda joogaan Hargeysa mooyaane laakiin wax runtii tala ah iyo wax runtii maxaa caawimo midna kamay geysan haddaynu ka tagno xafiiska siyaasadda hay'adaha kale qaramada midoobay ka jira Soomaaliland runtii dee way ka qaataan arrimaha caawimooyinka iyo runtii iyo waxyaabaha socda runtii qayb bay ka yihiin hay'adaha kale caalamka maxaa tahay jooga waddanka ay runtii iyaguna qabtaan marka laakiin xafiiska siyaasadda markaan ka hadlayno waxaan odhan karnaa dhammaan mandatekiisu mar walba wuxuu ku urursanaa arrimaha Soomaaliya iyo Muqdisho marnaba kamay muuqanaynin wax ruuma ama wax meel uga bannaan inay arrimaha Soomaaliland runtii ama doorasho ha noqoto ama dhisidda dawladnimo ha noqoto ama ha noqoto xalinta khilaafaadka in meel uga bannaanta runtii marnaba may muuqanaynin manay runtii fursadaas marna may imanaynin iyagu runtii arrintaa ay wax ka taraan. waa gartay haya xildhibaan waxaan jecelahay marka hore inaan saaxiibkay ka socdo civil society-ga ama dhaqaaqa bulshada rayidka ah aan arrintii uu sheegayay saxaal yar ka sameeyo saaxiib waxaan jecelahay bal marka hore inaad ogaato kasakow la macaamilka hogaamiyaasha siyaasadda iyo kuwa qabaa'ilka Soomaalida laamihii qaramada midoobay ee Soomaaliya ka